السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أركسن VIP maanta waxaan idin wadaa barnaamijkii ahay cuntada caruurta su'aalaha ugu badan ee aan Instagram-ka ku helaya waxay tahay ilmaha goormaan cunto ku bilaabi karnaa ilmaha yar oo dhasha goorma ayaa cuntada lagu bilaabi karaa ilmaha qof hooyadiisa kaga aqoon badan ma jirto hooyada ayaa taqaana ilmaheeda inuu cunto gaaray iyo in kale laakiin hooyada cusub way adag tahay inay ogaato inuu ilmaheeda ready yahay diyaar yahay ama inuusan diyaar ahayn laakiin badanaa hooyooyinka kale ayaa waxay ku kalifaan inay hooyadan cusub ee ilmaheediyo yar ay cunno ku bilowdo ay dhahaan ilmahaaga cunno ma yaqaan miya ma iska haysataa ilmaha cunaa la baraa ilmaha saana la yeelaa ilmaha kana la yeelaa ayada waa hooyo cusub ma garan karto hooyooyinkan waxa ay dhahaan inay ka yeesho waa macquul sababtoo ah gabar hadii aysan oo yar la guursado ilmaha ugu horeeyo way ku dhibtootaa hadii aysan hooyadeed oo ama walaasheed ka weyn aysan haysanin hooyadana qof cunugeeda ayada uga aqoon badan malahan ilmahaaga yarka ah inuu cunto diyaar u yahay horta ilmaha waa inuu 6 bilood gaaraa ilmaha 6 bilood waxa waaye waa inuu 6 bilood uu gaaraa 6 bilood lagama wada laakiin waxa laga wadaa horta ilmaha yarka ah ka mid koowaad aad ku garanaysid ilmaha qoorta ma cishanaya qoorta madaxa qoorta ma celin kartaa oo caadi ma isku taagi karaa cunuga qoortiisa ma fariisan karaa oo is celin karaa waxa kalood ka fiirin kartaa labadaas waxay horta midda ugu muhiimsan waa inuu cunuga qoorta cishan karo ilmaha hadii uusan qoorta celin karin oo cunug qoorta loo haayo oo wax la siiyo wuu ku saxanayaa ama hunguriga cad ayuu aadayaa ilmaha qaar inay saxdeen waxaad ku garanaysaa wuu ma tagaa alla wuu igu ma tagaa marka waxaan siiyo ma tagaaye hunguriga kale ayuu cuntadii ka aaday soo marka cunug aad adiga qoorta u haysid inaad wax siisid iska hilmaam waxba ha siin sababtoo ah qoortii adiga u haysaa soo marka lama siiyo ilmahaasoo kaleeto ka ilaali qofka ku dhahana ilmahaaga intaas la eg cunto sii waa qalad ha siinin sababta oo ah ilmahaas wuxuu ka aadi karaa hunguriga cad ilmahaas cuntadaas ay ku saxanayaan ama dhinacaas aadayaan burkiitay ka qaadi karaan pneumonia dhanka sanbabada wax ka gaari karo maxaa la dhahaa infection ay qaadan karaan ha ku bilaabin cuntooyinka ilmahaaga diyaar ahayn ha ka yeelin qof bil aadan hana ku bilaabin tan labaad waxaad ku garan kartaa in ilmahaaga uu diyaar yahay waa in uu weydki uu ku dhashay miisaanka uu ku dhashay labadiisa horta ha gaar ilmaha haduu 6 kiilo ku dhashay ama 5 kiilo ku dhashay 10 kiilo ha gaaro 4 kiilo haduu ku dhashay 4 kale ha ku darsado miisaankii oo ku dhashay inuu laba jibaarmo waaye marka hore oo miisaankiisa talabaad ilmaha ma raacaya cuntooda markaad adiga cunaysid ma ishuu kula raacaya ma macaansanaaya oo wax muudsanaa carabkiisa wax muu dhuuqi karaa laqitaanka ma u fududahay oo inuu wax laqayo ma dareemaysaa marka uu cunto uu arko ilmaha asaga is diyaariyo hooyana qof ilmihiisa kaga aqoon badan malahan ilmaha markaad cunto ku bilaabaysid cunto walbo ha barin just waxaad ku bilowdaa hal cunto ku bilow teeda kale cuntada macaan ama sokorta ha ku bilaabin sababtoo ah ilmaha hadii uu macaanka jeclaado noloshiisa dhan wax macaan mooyaan wax kale ma cunaayo teeda kale waa caadi sababta oo ah cunugaaga in uu cuntada kadib dhaco ilaa sanadka ugu horeeyo wax dhibaato ah malahan sababta oo ah ilmaha yarka dheefshiidka calooshiisa ah awood uu cuntada nafaqo kala soo baxo uu jirkiisa uu geliyo wali ma gaarin mana lahan wuuna yar yahay
soo marka cuntadan aan la siinayo ilmaha waa cunto si fan ah ama barasho ah ama farxad uu baranayo waaye iyo dhadhanka dhanaanka iyo macaanka iyo qaraarka inuu kala saaro bis ayaa loogu talagalay mooyaane cunto koriimo siinaysa ma aha waa kalorida ka buuxo waxaa ka buuxo in calooshiisa ay buuxsamaato caloosha hadday buuxsamaatana inuu jirka aad cunugaasi inuu cayilo oo kaliya ayay noqonaysaa laakiin ma noqonayso cunugaaga inuu maskaxiyan iyo dhadhan iyo maxaa la yiraahdaa dheefshiid intaba uu ka dhisan yahay ha u malaynin oo ilmo iska buuran oo boqboqlaho meeshaas ordaayo uu noqon karaa laakiin ma ahan cunug tabar iyo nacam aqliga iyo xaggaasoo dhan ka dhismaaya ma ahan cuntooyinka ilmaha markaad ku bilaabaysid hal cunto wiigiiba hal cunto inaad barto isku day wiigan ilmaha cuntada ugu horeydo hal cunto ha noqoto 10 cunto ha isku dhex darin maalin waxaad ku bilowdaa afakaadhada ilmaha badanaa afakaadhada ama muuska ama rice cerealka wax la dhaho bariiska la shiiday haddii aad Afrikada joogto bariiska cadaad makiinadaha ma aragtay mishaarida laga soo shiito ayaad uga soo shiidaysaa isagoo shiidan oo buda ah sida mishaaridii laga soo dhigay baad u karsan kartaa haddii aadan helin kan baakadaha ku jiro oo wadamadan kale laga helo bariiskas kaliya caanaha yar uu cabayo ayaad ugu daraysaa waad u dhadhansiina wiigaas bariiskas mooyaane cunto kale ma tusaysid wiiga kale waxaa laga yaabaa banaana inaad tosto oo bartid jabyaro banaanaad u jajabinaysaa waad u dhadhansiinaysaa inuu liqayo iyo in kalena waa inaad kalo seembirin cunug jiifo waxba ha siinin ama cunug aad saas dhabtaada ku haysid cunuga wada fariisi sida qof bilaadan intuu fariisan karo fariisi markaas sii tan kale waxaad samayn kartaa wiiga saddexaad oo kale haddana waxaad ku bilaabaydaa avocado waa ilmaha waxaan ka hadlayaa 6 bilood jiro afakaadhadaasad u dhadhaminaysaa waa fruudkii iyo cuntada kale oo saaladka aheeda isku daraysaa bariiska badanaa ma aragtay iyo muuska cuntooyinka fiberkooda zaa'idka iyo maadada fiberka ku jiro ilmaha marka cunto ku bilaado saxarada ku dhigto soo marka cunuga hadda inay saxaro kaaga dhigaysa aad aragto ogow waa cuntada saaladka cuntadan adag aad siinaysid waaye ka yaree cuntadaas cabitaanada u badi biyaha cad u badi caanaha u badi mostilina waxaa fiican ilmaha in uu aad nuujiso 100% isku day hooyada inay ilmaheeda nuujido ilmaha yarkaa markii la nuujiyo wuu ka caafimaad badan yahay ilmaha aan la nuujinin wuu ka maskax badan yahay wuu ka aqli badan yahay wuu ka difaac badan yahay because difaacaagu kula qaybsanaya caanaha yara gascadaha ku jiro ee formulada la yiraahdo mama makiska la yiraahdo waa wax matalan naaski hooyada u dhigmaan wax la leeyahay laakiin wax naaska hooyada kaleeta ah ever adduunyada ma jirtaba gabar waxaan arki jiray wiilkeeda iyo wiil dariskaana nuujiso ee labada wiil isla kaceen oo ka xoog badan yihiin ma sha Allah tabaarakallah ma fahmi soo marka caanaha naaska way ka fiican yihiin maxaa la yiraahdaa oo kaleeto qudaarta kalarka ful oo yellowga jaalaha ah gaduudka ah cuntooyinka kalar kale ilmaha way u fiican yihiin baradhado kale markuu cunuga sii socdo 8 bil 9 bil ku gaaro baradho iyo karootada iyo jabyaro chicken aad iskugu darto oo u shiidido waxa aasiisid oo kale cuntada ku sii barbaranaya haddii aad awoodid ama aad heli karto mashiinkan hadda aan meesha ku soo bandhigay ee baby bullet la leeyahay ee koobabka yar yar wato koobabkaas ayaa waxa ugu shushubi kartaa dheedu leeyahay maalin walba midkii aad sameeyday dheedkiisa bisha 27 miya 3 miya 4 miya dheedkaad ku qoranaysaa soo mar walba dheedkaasaad fiirinaysaa aad samaysay dheedkaasaa siina cunto daahdan ilmaha iska siinin nacam waxaan ka wadayaa dadka qurbaha joogo badanaa waxa intay hal maalin sameeyaan ee dhalooyin ku shubaan ee mid walba dheeda maalin u sameeyay firindeerkaad gashanaysaa oo markaas xabadiisa siiraad biyo kulul u dhaxgelinay xabalkaas xabad siina oo maalin walba cunto uma sameynaysid hal maalin iskugu shiidaysaa bocorka waaweyn oo bocor guduudka aan dhahan oo kalena uu fiican yahay kaasna ilmaha waa loo wada shiidaa laakiin waa markuu ilmaha xoogaa uu roonaado oo 10 bil ama yeer camal uu ku sii socdo aad iyo aad u anfacaysa iyo maxaa la yiraahdaa digirtan greenka ah
oo green beans kala leeyahay oo kaleeto waa la siiyaa markay xoogaa roonaadaan oo calooshoodii dheefshiidkoodii uu shaqada uu qaban karo aad dareentid cunugaaga inuu cunto qaadan karo waa next level qaybti kalaad u gudubta laakiin inta uu 6 bilood iyo 7 bilood uu ka yar yahay just hal cunto ku samee laakiin markuu dhaafo sida baradhada iyo karootada iyo chickenka iyo waa la iskugu dhex kariyaa markay jilcaan waa la siiyaa waa loo shiidaa xitaa hadduu xataa ku adag yahay kaaraadka kaligiisa loo shiidaa cabitaan ahaan waa loo siiyaa iyadoo sideeda ah oo nacam jilicsan waa la siiyaa karadka aad iyo aad ilmaha ugu fiican tahay laakiin waxaad iska ilaalidaa ilmihii oo yar intii lagu yiraahdo ilmahaaga waxba ma cuno in aad ilmihii oo yar aad cunto ku bilowdo hadhow ilmihii caanuhu ka diida weydkiisa hoos u dhacayaa ilmihii uu ka xanuunsanayaa nacam ilmahaagii caanaha wax uga fiican ma jirto laakiin marka aad cunto barayso ilmaha waqtigoodii uu cunto in uu asaga ama iyada ay ku cuni karto ay gaaraan ha ku qasbin inaad cunto siido ha dhageysan qof banaanka kaaga yimaado because cunugaaga cid kaaga aqoon badan hooyoy ma jirto yaa lagaa waalin cunug hooyadiis hayso uma eka iyo ilmahaaga cunto ma cuno iyo no ilmahayga intaanu ku caafimaad qabaa maalinta uu wax soo qabsada Allah gaarsiiyo waa lagaa waali karaa oo waxa lagu dhihi karaa ilmaha cunto sii ilmaha cuntada la siiyaa fiican ilmaha uu ku koraaya sembir cunugaaga koriima ku socota hooyo ama odiga ogaaw ama ha ogaan ilmahaaga uu koraya no matter what laakiin waxaad iska ilaalisaa ilmihii yar in aad cunto siido ilmihii cuntada kaaga saxdaan ama cuntadii kaa diidaan soo marka waxaad sameynaysaa hal cunto ku bilaaw hal maxal laha karooto juice uga shiid hal barada u kari nacam take your time ha iska boobsiini waqtigaaga qaado ha dhageysanin qof kaleeto experience-ga qofkan inuu leeyahay waxa laga yaabaa inaad adiga ka khibrad badan tahay qof 10 caruur soo korsho waxa laga yaabaa qof xabad caruur koriyay inuu ka khibrad badan yahay ma aha qofka haduu nolol kaaga horeeyo inuu ka khibrad badan yahay wabillahi tawfiiq barnaamijkii caruurta iyo cunooyinkooda iyo sidii aad ugu kala habaysan lahayd sembiri ilmaha qoorta cishan karo kaliya kuwaas ayaa laga rabaa in aad siiso cunto ilmaha haduusan qoorta cishan karin cuntooyinkaas ha kula ordin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu